war maamul goboleed baan nahay haddii ku dhiirada waan ku garab taaganna ilaahow may maamul goboleed noqoto may xasan muu halkan ka yimaado war koos xukuumadda maanta talada haysa waxay u timid gaari laga saaray geerbogaskii santaraboolkii jeentii iyo wixii uu ku dhaqaaqayba meel ay ka bilowda maanta runtii way la kadeedan tahay dagaal iyo qaylo ku jiri mayno haddii berri ka maalin aanu aan waxba garan waayo war maamul goboleed baan nahay haddii ku dhiirada waan ku garab taaganna dhalinyarada maanta halkaa tuban oo cidla nagaga dhimatana diyaar uma nahin ilaahow may maamul goboleed noqoto may xasan muu halkan ka yimaado war dawladdii 15 sanadood iska soo daba fuushay dalka waa xisbigii kulmiye muxuu maanta ummadda uga tagay marka waxa weeyaan dhibaatadaas oo dhan xisbigii geystay waliba inuu haddana noo cumaamadan yahay ninkii dhibka geystay uu ku leeyahay madaxweynaha u taaganay doorta waa mushkilad weeyaan wax ogolaansho ay Soomaaliland ogolaatay baan halka lagu geeyay cidii geysana waa cidii lahayd fiisa ayaa shalay layga qabsaday dalka Ingiriiska waxaad ogsoon tahay inuu fiisada intuu iska soo qaato jeebka gashadun buu inagana inuu aamusay horta aad baad u mahadsantahay maanta waxaan u jeeday ninkii khadar oo awalda hadalka dhex fadhiisan jiray maanta tabtii siyaasiga uu hadlay waa wasiirkii madaxtooyada halkii wax ka qaldameenna uu sheegay xaqiiqadii waxa aynu xasuusinaynaa maxaan ku raadayay informationku inuu barigii hore dalkii Soomaaliya ka burburay dadkii iyo ummadii qaxdayna uu raacay magaalada Nairobi uu fadhigiisa ahaa oo UNDP oo qaxoontiga qaabilsan ay salkiisa haysay hasan noqotee waxaad arkaysay xilligii riyaala in diyaaradihii adduunka ka imanayay oo jandaaya Faraysar saarantay oo labada xisbi ee Ingiriiska ugu waaweyn Conservative iyo Labour-ku saaran yihiin bartanay ka soo dagayeen taana waxa keenaysay inay hay'adaasi Soomaaliland toos uga warqaadan jirtay because wax heshiis lagu ahaa ma jirto hasan noqotee wada ogeyda xukuumadii udub waati meesha ka baxday ka bacdi kulmiya meesha yimi kulmiya markuu meesha yimi wada hadalkii siyaasiga ee uu riyaala ka xidhay Soomaaliya iyaga la furay markay la fureenna informationkii halkii uu fadhiyay looma daynine xilligii farmaajo wuxuu maxamuud xaashi iyo siiraanya kala heshiiyay in smartay hay'adda Hargeysa la keeni doono annaga oo dalkii Soomaaliya aqoonsi haysanaana soo qaadno de siyaasadda waa yahay bay yiraahdeen diyaaradii dabeetana informationkii waxa laga dajiyay magaalada Muqdisho wax ogolaansho ay Soomaaliland ogolaatay baan halka lagu geeyay cidii geysana waa cidii lahayd fiisa ayaa shalay layga qabsaday dalka Ingiriiska waxaad ogsoon tahay inuu fiisada intuu iska soo qaato jeebka gashadun buu inagana inuu aamusay laakiin markii ummadii halka ku cadilantay ayuu ma aragtay maxamuud sidan u hadlay marka inuu maanta khadar jawaab siyo yiraahdo su'aaluhu ay ka xidhan yihiin runtii waan ku taageersanay because xukuumadda maanta talada haysa waxay u timid gaari laga saaray geerbogaskii santaraboolkii jeentii iyo wixii uu ku dhaqaaqayba meel ay ka bilowda maanta runtii way la kadeedan tahay dawladdii 15 sanadood iska soo daba fuushay dalka waa xisbigii kulmiye muxuu maanta ummadda uga tagay silic buu nooga tagay maryaad buu nooga tagay ummadayadii maartay Somalilandanka ahayd ama ummadii kale Soomaalida halkan imanaysay fiisa ayaa la yiri Dubai hadaanad ka qaadanin Somaliland ma gudbi kartay marka anigu runtii maartay xukuumadda maanta joogta waxaan ku dhaliila ma hayo laakiin inay maartay meel eberah dhex joogsatay qayladun baynu maqlaynaa eber baynu dhex taagan laakiin xukuumadda qudheedu miyaan hayn arrintan ka hadasho maxaad mucaaradka ugu dhaliilaysaa maya xukuumaddu maxay kaga hadlay shalay bay talada deel la wareegtay haddii ay wax shaqadan ma leeyahay leedahay Faadimo de xukuumaddan shaqadan uma taalo 15 sanadood xisbigii talada hayay muxuu nooga tagay dalka mucaaradda maamulay xukuumadda maamulay xukuumaddii maamulaysa shalay ka tagtay maxay ummadda ayaa laga tagaa ilayne maxay nooga tagtay imika adu wariya tahay wariye kala kugu dayanayo raad baad ka tagaysaa muxuu ka tagay ummadan oo socota iyo hoggaankeedii informationkeedii wixii wada shaqaynaya kulmiye lagu wareejiyay maantana eber baan taaganno Muqdishoana laga xukuma waliba 2016 waxa imanaysa xasan haduu soo noqdo Dubai dambe halka ka soo dagaysa arkimays waxay ka dagaysaa xamar bay ka dagaysaa markaas diyaarado yar yar oo kale dadka lagu soo daadgureynaya marka waxa weeyaan dhibaatadaas oo dhan xisbigii geystay waliba inuu haddana noo cumaamadan yahay ninkii dhibka geystay uu ku leeyahay madaxweynaha u taaganay doorta waa mushkilad weeyaan maanta wuxuu ikhtiyaar u leeyahay Cabdiraxmaan Cirro wargaari maran baan dhex taaganahay dagaal iyo qaylo ku jiri mayno haddii berri ka maalin aanu aan waxba garan waayo war maamul goboleed baan nahay haddii ku dhiirada waan ku garab taaganna maxaa kala jirade dhinaca kale laakiin bal xukuumaddu ilaa hadda kama hadal saraakiisha iyo ciidamada ku xidhan laascarood maxay ka dalnay horta dhageyso
ifinationka markii uu Nairobi joogay dad reer Somaliland loo tababaray iyaga ayaa maxaan ku dhahdayay imanayay halkan markii ifinationkii la soo wareejiyay Hargeysa yimaadeen oo shaqo ka dalbadeen dawladda haddii ay ka dalbadeenna waxay yidhahdeen mushahar uma hayno iyagoo dad badawa oo moobajiya oo ceelasha xoolaha ka waraabin jiray meeshii ku guray raggiina markay yaaceen ay Yurub tageen waa kii ifinationkii dib u qaabile xamar laga dajiyay haddana markii diyaaraduhu buuqu galay waa tii ficilka la geliyay la yidhi hawadeenni baynu qabsanaynaaye dahablow furaha noo soo dusi waa kii hay-adda ikaawa fadhigeedu yahay maxaan ku rahday meesha la yidhaahdo Shakaku waa kii eeg wuxuu sheegay ifinationkii inuu fallaadhi halkaa ka booday oo Hargeysa loo diray naftiisii waa tii galaafatay nafa kaloo naga baxa diyaar uma nihin dhalinyarada maanta halkaa tuban oo cidla nagaga dhimatana diyaar uma nihin ilaahow may maamul goboleed noqoto may xasan muu halkan ka yimaad ifinationkii waxa laga dajiyay magaalada Muqdisho wax ogolaansho ay Somaliland ogolaatay baana halkaa lagu geeyay ciddii geysana waa ciddii lahayd fiisa ayaa shalay laygaga qabsaday dalka Ingiriiska waxaad ogsoon tahay inuu fiisada intuu iska soo qaato jeebka gashaduun buu inagana inuu aamusay laakiin markii ummadii halkaa ku cadilantay ayuu ma aragtay maxamuud sidan u hadlay marka inuu maanta khadar jawaab siiyo yiraahdo su'aaluhu ay ka xidhan yihiin runtii waan ku taageersanahay because xukuumadda maanta talada haysa waxay u timid gaari laga saaray geerbogaskii santrabolkii jeentii iyo wixii uu ku dhaqaaqayba meel ay ka bilowdo maanta runtii way la kadeedan tahay dawladdii 15 sanadood iska soo daba fuushay dalka waa xisbigii kulmiye muxuu maanta ummadda uga tagay silic buu nooga tagay maryaad buu nooga tagay ummadayadii maartay Somalilandanka ahayd ama ummadii kale Soomaalida halkan imanaysay fiisa ayaa la yiri Dubai hadaanad ka qaadanin Somaliland ma gudbi kartay marka anigu runtii maartay xukuumadda maanta joogta waxaan ku dhaliila ma hayo laakiin inay maartay meel eberah dhex joogsatay qayladun baynu maqlaynaa eber baynu dhex taagan laakiin xukuumadda qudheedu meel hayn arrintan ka hadasho maxaad mucaaradka ugu dhaliilaysaa maya xukuumaddu maxay kaga hadlay shalay bay talada deel la wareegtay haddii ay wax shaqadan ma leeyahay leedahay Faadimo taa xukuumaddan shaqadan uma taalo 15 sanadood xisbigii talada hayay muxuu nooga tagay dalka mucaaradda maamulay xukuumadda maamulay xukuumaddii maamulaysa shalay ka tagtay maxay ummadda ayaa laga tagaa ilayne maxay nooga tagtay imika adu wariya tahay wariye kala kugu dayanayo raad baad ka tagaysaa muxuu ka tagay ummadan oo socota iyo hoggaankeedii ifinationkeedii wixii wada shaqaynaya kulmiye lagu wareejiyay maantana eber baan taaganno Muqdishoana laga xukuma waliba 2016 waxa imanaysa xasan hadduu soo noqdo Dubai dambe halka ka soo dagaysaa arkimays waxay ka dagaysaa xamar bay ka dagaysaa markaas diyaarado yar yar oo kale dadka lagu soo daadgureynaya marka waxa weeyaan dhibaatadaas oo dhan xisbigii geystay waliba inuu haddana nooc maamadan yahay ninkii dhibka geystay uu ku leeyahay madaxweynaha u taaganay doorta waa mushkilad weeyaan maanta wuxuu ikhtiyaar u leeyahay Cabdiraxmaan Cirro weer gaari maran baan dhex taaganahay dagaal iyo qaylo uu ku jiri mayno haddii berri ka maalin aanu waxba garan waayo war maamul goboleed baan nahay haddii ku dhiirada waan ku garab taaganahay maxaa kala jirade dhinaca kale laakiin bal xukuumaddu ilaa hadda kama hadal saraakiisha iyo ciidamada ku xidhan laascarood maxay ka dalnayeen horta ay dhageyso ifinationka markii uu Nairobi joogay dad reer Somaliland loo tababaray iyaga ayaa maxaan ku dhahdayay imanayay halkan markii ifinationkii la soo wareejiyay Hargeysa yimaadeen oo shaqo ka dalbadeen dawladda haddii ay ka dalbadeenna waxay yidhahdeen mushahar uma hayno iyagoo dad badawa oo moobajiya oo ceelasha xoolaha ka waraabin jiray meeshii ku guray raggiina markay yaaceen ay Yurub tageen waa kii ifinationkii dib u qaabile xamar laga dajiyay haddana markii diyaaraduhu buuqu galay waa tii ficilka la geliyay la yidhi hawadeenni baynu qabsanaynaaye dahablow furaha noo soo dusi waa kii hay-adda ikaawa fadhigeedu yahay maxaan ku rahday meesha la yidhaahdo Shakaku waa kii eeg wuxuu sheegay ifinationkii inuu fallaadhi halkaa ka booday oo Hargeysa loo diray naftiisii waa tii galaafatay nafa kaloo naga baxa diyaar uma nihin dhalinyarada maanta halkaa tuban oo cidla nagaga dhimatana diyaar uma nihin ilaahow may maamul goboleed noqoto may xasan muu halkan ka yimaado war nabadgelyo